mar walba galaangal kule gudaha Soomaaliya dhinaca ay la safayihiin waa muhiim in bulshada Soomaaliyeed ay ogsoonaato waan dul istaagi doonaa waxaan dhinaca kale dul istaagi doonaa arrin maalmaha socoto la yiraahdo kumade ayaa lagu soo duulay kumada u kaca kumade bas madaga Jubbaland qabiilo badan baa daga laakiin hogaankay hayaan majority ba inay ka yihiin kaba soo qaadba wax duulaan maanta ku kumade miyaa jira mise waxa isdiidan aragtiyo dawladda federaalka iyo maamul goboleedka iyo sidoo kale to shacabka Jubbaland sida ay ugu baahan yihiin isbedel miyaa meesha ka socdo mise wax kale meesha iyadana ka jira waan iftiiminaya soo dhawaada muuqaalka la isaara aragtidina nawreela qaybta commentiga ay ku bilownay Jubbaland 13 sano 14 sano 12 sano oo saxa iyo 2 sano oo waagi intaan waxba la dhisina 14 sano Axmed Madoobe dhax fadhiya Jubbaland dhaxdeeda oo hogaanka u haya kaba soo qaad 2 sano iska tuur waa intii loo leeyahay gaarkeeda la joogay 12 sano ka dhig 12 sano toosuu xukunka uu ku fadhiyaa oo uu joogaa waa ina marka 12 sano qofka in Janis lagu tijaabiyo lagu barto waa la helay waa inaan isweydiino war 12 sano kadib maxay inoo suura galay kaba soo qaad inuu scratch uu ka bilaabay meel hoose inuu ka bilaabay oo waxba lahayn oo ever inuu ka bilaabay ka soo qaad 12 ka sano meeshuu ugu tagay Axmed Maxamed Islaam magaalada Kismaayo iyo Jubbaland halkii ma ka qaaday oo Jubbaland wax maanta la taaban karo ma ka sameeyay dhinaca siyaasadda dhinaca horumarka dhinaca waxa weey dhinac walba markii laga eego Axmed Maxamed Islaam 12 sano kadib wax maanta lagu xusuusan karo oo la dhigi karo bariha tuu tago Axmed Maxamed Islaam waxa soo geystay oo horumar ama noocay doonto baa noqotay ma jiro waxa kaliya laga faa'iiday maamul adag dadka cuburiya laaya xirxida afduubo tarxiilo inta baa laga faa'iiday nabadoonadii iyo isimadii iyo waxa weeye dadkii mudantaha ee waliba birmageedada ahaa odayaashii iyo xildhibaanadii iyo wasiiradii ayaa qof walba oo ka aragtay duwan miduu qarxiyo iyo miduu tarxiilo ka dhigay Axmed Madoobe wuxuu noqday qofkii ugu horeeyay ama maamul Soomaaliyeed qabta oo qof deegaankiisa ka tarxiilo meel kale u tarxiila Axmed Madoobe noqday xildhibaan ku dhashay Kismaayo oo xildhibaan oo xasaanad haystantiri waa ninka intuu jeebeeyay Muqdisho ka dajiyay meesha laga tarxiilay waa xagee waa deegaankiisi waa dadkiisi waa gurigiisi waa meesha carruurtiisu deganaayeen Axmed Madoobe waa ninka nabadoon intuu xidhay oo jeebeeyay diyaarad ka saaray Kismaayo oo ka diray oo ka masaafuriyay ma ninkii ugu horeeyay weeye 12 ka sano marka waxaan xarig iyo cuburin ahayn oo Axmed Madoobe aan ka faa'iidnay ma jiro bulshada reer Jubbaland marka waxa la rabaa inay dantooda ay gartaan Axmed Madoobe waagi hore deewaaba nin waxa weeye socon karo hadda waa dhamaaday wuxuu ahaaba waa dhamaaday maradu hadday dhamaato deewaa la iska tuuraa manafacaadkeeda dhamaanaya oo cawradaada ma asturayso waxa loo baahay marka Axmed Madoobe maanta wayna ceebeeyay waana dhamaaday oo isagii baaba hadda labadiisi lugood horay saaridu ku sheegay aan isla socon karin oo lagu intay kala hadaan ninka daba socdo u dhahay war lugta u qabo u dhaa la dhihi Axmed waxa loo baahan yahay inaan intaan iska qaadno aan iska tuurno sidii marada dhamaatayba waa la iska tuuraaye inaan iska tuurnaa loo baahan yahay oo la keeno qof cusub oo ceebta uu Axmed Madoobe 12 ka sano uu geystay ka tirtira bulshada reer Jubbaland isku keena dhig cusub Jubbaland ku shuba oo maamul goboleedyada kale waan ka hadnay ina soo gaarsiiya oo argagixisadan dhulkeena haysatay state house ka soo dhigatay ee maamul goboleedyada kale intii laga soo shamiyay laga soo ceeliyay inaga saldhigyada inaga dhigatay dhig cusub qof cusub oo inaga dulqaadi kara oo isbedel bulshada reer Jubbaland u keeni kara waa inaan raadino Jubbaland ay la keenaan loo baahan yahay shacabka Jubbaland ma aha inay madax iska dhawrtaan Axmed Madoobe madaxiisa inoo muuqda qalbigiisi waa baabay oo jismigiisi waa baabay oo aqligiisi waa baabay oo waxba maanta ma hayo horeyna waxba inooma qabanin waxa ma aha marka inaan madaxiisa iska dhawrano dhaan Axmed Madoobe aan hayna maaha waa inaan isbedel raadino isbedelkuna fadhi ku imaan mahaye waa in af iyo adin iyo maalba lagu bixiyo sidii isbedel loo heli lahaa bulshada reer Jubbaland ee dal iyo dibadba joogto waxaan leeyahay war qofkii ina dhay lahaa ee boobteena dhay lahaa ee ceebteena asturi lahaa ee ceebaheena mayli lahaa ee bulshada isku keeni lahaa ee waxa weeye qabaa'ilada degan Jubbaland oo dhan maanta balaaya ka dhex taagan nin maanta shaah la cabeeyo ma jiro isku keeni lahaa isku soo ururin lahaa
warkaas aan raadino kaasay danteena iyo jiritaankeenu ku jira axmed madoobe waxaan hubaa 5 sano soo socota haddii la siiyo oo uu sii joogo inaan bulshada reer Jubbaland inta hadda joogta xataa aan la arkaynin inta hadda joogta xataa lama arkayo waa baabiinaya xaqiiqada markaan ka hadlo war waxaa loo baahan yahay marka inaan dadkeena garanno oo sidaan hore idinku sheegay maro hadday dhammaato waa la iska turaay cawrada asturi mayse markay cusub tahay maradu cawrada asturtaay ninka waa dhammaaday aan iska tuurno ceebaheennii oo dhan baa adduunka dhan yaa qabsaday oo maanta wayna ceebeeyey oo wax maanta aan la joogna ma jiro oo maamul goboleedyadii waan ka hadhnay oo bulshadii Soomaaliyeed buu ceeb inoogu soo jiiday war ma waxaad aragtay 12 sano oo dowladda xun lala dagaalamayo war kii daarooda imaaday buu la dagaalamay oo kii kubadeed imaaday buu la dagaalamay oo kii hawiye imaaday buu la dagaalamay oo kii hawiye kale la dagaalamay war ma dagaal baa ku jireynaa war goormaan ummadeena Soomaaliyeed wax la yeelanaynaa war goormaan arkayna inagoo dowladii dhexe la shaqaysanayno saamigeena ka qaadanayna dowlad walba ma dagaal xasan hadduu xumaado bari ka imaado la dagaalamaya mid walba imaado la dagaalamaya wuxuu daynaya ma jiro kuwii gudaha joogayna ammaan iyo kuma helayaan xuriyad kuma helayaan oo dhibaatada aragtay oo baday ma waxaasaan marka ilaahay baa inagu dhaariyay aan sii daba joognaa war dulmiga lama garab istaagay kuwa dulmiga ninka ku garab taaganow ilaahay ka cabsada axmed madoobe dad ugu sokeeya aniga dad ugu sokeeyana maanta ku garab istaagi maayo shalay waa ku garab taagnaa laakiin maanta kuma garab istaagaya dulmi inta ka badan ma sii taageerayo ilaahay baan ka baqaya war idinkuna ilaahay ka baqa oo isbedel hal raadiyo oo Jubbaland la wada leeyahay bulshada Soomaaliyeed ay wada leedahay hogaanka cid uu rabo ha qabtee oo la isku keenayo bulshada Soomaaliyeed oo wax tar leh aynu dhisno taasa muhiim inoo oo bulshada reer Jubbaland muhiim waa taasi waa midda kale waran waxa soo noqonaya la yiraahdo kumada duulaan lagu yahay war kumada yaa duulaan ku ah war shalay markuu la dagaalamay Farmaajo ma kumadu duulaan ku ahaa war darad markuu la dagaalamay Cabdullaahi Yuusuf ma kumadu duulaan ku ahaa soo kumada ma haynisaw ayagu soo daarood ma haraga war kumadaha ninka duulaanka ku waayo war Sheekh Shariif shalay ma kumadu duulaan ku ahaa kumada miyo duulaan ku ahaa war Xasan Sheekh shalay ma duulaan buu kumada ku ahaa maanta ma kumadu duulaan ku yahay war ilaahay ka cabsano beentaan iska daynaya propagandada iyo waxaan waxba ka jirin khiyaaliga iska daaya siyaasadu waxay leedahay meel dhaliilaheeda limida oo laga ataagi karo oo ku salaysan xaqiiqo ayay leedahay xasan hada doonaysan inaad dhaliilo waaleeyahay qof socdo nool dhaliil laga waay maayo ha dhaliilo sidiisa aan ku dhaliilo aan dhahno sidaas iyo sidaa maamul waxa weeye wadankii waxaad gelisay khilaaf baad gelisay oo dastuuriya qodobadaas lagu haystaa maamul goboleedyadii baa waxa weeye kacsan qodobkaan kugu haysan aan dhahno laakiin haddaan dhahno kumadu duulaan ku yahay daarood buu duulaan ku yahay war cid daarood duulaan ku ma jiro daarood waa dad jira dhul bay leeyihiin cid maanta ka qaadan kartana ma laha aynu ku salayno aniga 3 sano hadda ay jirto 3 sano ku dhawaad bay dowladda xasan ay jirtaa 6 bilood hore markii laga soo tago intii dambaba waxaan ka mid ahay dhalinyarada ama wariyaasha iftiimiya ee dabagala waliba xaqiiqada saxda iyo dhaliilaha ay dowladdu leedahay wax walbo dhaliilo leedahay halkan aan soo dhigaa xasan daarood duulaan kuma aha wax daarood leeyahay oo duulaan ku yahay malaha siyaasad ku wajahan maamul goboleedyada dhan ayuu wataa siyaasad isagu ku soo noqon karo kursi oo ku joogi karo wataa qorshayaal aan laga wada mideysnayn oo habraac sax soo marin buu wataa dhaliilihiisa intaas ka badbadan oo ku filan laakiin hadii la yiraahdo qabiil baa ugu soo duulay Farmaajo shalayto waa kii ciidankeena Jubbaland ma ku soo duulay daarood duulaan ku asaasoo daarood ma ahayn waxaan leeyahay marka dhaliilaha dowladda federaalku ay leedahay way iska cadihiin wax lagu soo hoos gaban karana ma aha 5 sano walbana Axmed Maxamed Islaam wuxuu inoo isticmaalaya reebel baa soo duulay muxuu yahay reebelka isaga duulaanka ku ma jiro waxaas marka waxba kama jiro maanta shacabka reer Jubbaland waxay u baahan yihiin in midnimadooda laga shaqeeyo dowladnimadeeda wax wada lahaansha deeqa wax wada lahaanshooda say wax wada yeelan lahaayeen in laga shaqeeyo loo baahan yahay dhiig cusub in lagu shubaa looga baahan yahay looma baahno reebel baa lagu soo duulay inaan u sacabatumniyo dulmi iyo been qof uu doonayo inuu kursiga iskaga fadhiyo maya taana lagama dhaadhicinayo marka shacabka Jubbaland waxa la taas la qaato dhinaca kale dowladaha Kenya iyo Ethiopia dowladda leeg bay ka qaadanayaan xiisadan ka dhaxaysa dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale maamulkan Axmed Madoobe dowladda Kenya warkeedu waa cad yahay waxay tiri aniga kuma daalayo Soomaali dhaxdeeda is haysata soo heshiiya hadii soo heshiinin ayna heshiisiino wax intaas dhaafsiisano ergeeyay uu magacawday
oo waxa weeye maxbuub macalin la yidhahdo u magaca ambassador maxbuub macalin la yidhaahdo ayay u magacawday kaas bay tiri waraadna socdaha soomaaliya deegaankana de waxa weeyaan lagaa lahayn orodoo nimankaa kala dhexgal bay tiri ciidamada kenya maanta dhadhexaad bay ka yihiin xaaladda siyaasadeed ee jubbaland iyo dowladda federaalka marka kenya halkaa bay ka baxday xaggan etoobiya aan eegno etoobiya way ciirciiraysaa waxay isticmaalaysaa xaalad naflacaarinimay isticmaalaysaa kadib markii ciidankeedina laga reebay ciidamada cusub ee howlgalka midooda africa ee bilaabanaya 2025 ummadii soomaaliyeedna ay ku kacday heshiiskii muuse bixina uu hirgeli waayey abiy axmed wuxuu isticmaalayaa marka galgalasho ayuu isticmaalaya gobolka gaday ciidamadeedu joogaan axmed madoobe garab iyo gaashaanba hadda u muujinayaan sida hadda muuqato laakiin da waa lagu xisaabtamaya waa la iskaga daba imaanaya shacabka soomaaliyeed waxa weeye cid walba oo dagaal dhexdooda gelinaysa oo ayaga isku diraysa waa la iska qabanaya ciidanka weliba soomaaliyeed ee xoogga dalka soomaaliyeed ciidankaas ciidan xasan uu leeyahay maaha ku xamse uu leeyahayna maaha kuwa daraawiishta jubbaland axmed madoobe ma laha xasanna ma laha xamsena ma laha waa ciidan soomaaliyeed weeye cid walboo iska horgeynaysa oo shacabkaa soomaaliyeed iyo ciidanka soomaaliyeed xabad iskugu dhiibaysa ummadda soomaaliyeed marna ma aqbalayaan marka waa la iskaga daba imaanaya etoobiya laakiin dhaqaaqeedu wuxuu muuqdaa inay axmed madoobe ay garab u yihiin oo de waa ku cawda wuxuu yidhi